Kooxaha Hagen iyo Gift ayaa beri waxa ay ku ballansan yihiin kulanka kama dambaysta ee finalka tartanka koobka Jane Daud ee sanadkani. Labada kooxood ayaa waxa ay soo bandhigeen ciyaar aad u wanaagsan waxayna ka soo baxeen guruubyada ay ku kala jireen iyagoo hadda ay imaadeen booska kama dambaysta ee tartanka koobka Jane Daud ee kubadda kolayga ee sanadkan. Fiinaalaha ayayna yihiin diyaargarow xooggan ayay sameeyeen labada kooxood si ay kulanka berita ay markaasi guul ugu soo hoyaan. Labada koox xilli ciyaareedkan isbedel weyn ay soo sameeyeen. Kooxda Hagen waxay ka soo tiraabsatay dhigeeda kooxda Horseed oo ay markaasi dhawaan ee la ciyaartay. Sidoo kale kooxda Gift ayaa iyadana ka soo gudubtay kooxda Dekedaha oo ayaga markaasi iskaga hor yimaadeen tartanka afar-dhamaadka. Beri galab ayaa waxaa lagu madalsan yahay in garoonka ee kubadda kolayga ee Wish ee degmada Cabdicasiis dhaca inay ku ciyaaraan tartanka Jane Daud finaalkiisa. Labada kooxood ee markaasi kala ah Gift iyo sidoo kale kooxda Hagen. Kooxda kubadda kolayga Gift sanadkan waxa ay difaacanayaan koobkooda waxa ayna yimaadeen finaalka waxayna doonayaan in markaan ay labeystaan xilli ciyaareedkan. Hagen oo muddo ugu dambeysay koobkan ayaa iyadana dardar xooggan ee ku bilaaban doonta iyadoo dagaal adag ee u gali doonta sidii ay ku heli lahayd koobkani. Wixii natiijo ka soo baxa waxaad ku ogaan doontaan kulanka berita haddii uu soo idlaado. Yaad u rajeynaysaa in koobkan uu ku guuleysto kooxda Hagen mise Gift?